garanaysaa beelo tahay waxaa la yidhaha mushaara warsame mushe waxaan ahay shirkaad soo shaqeeyey oo wax badan iyo dowlado badan soo maray dowladdii Soomaaliya ee qaranka ahayd soo gaaray iyo maamuladii ka dambeeyey oo lookalada ahaa dhammaan hadda waxaan joognaa xukunka Puntland ay joogto waxyaabaha dhacdooyinka ka dhacay markaan yani si bareer ah uga hadlo waxaa ila daray sida maanta ka dhacday maxkamadda magaalada madaxda Puntland ee Garowe ka dhacday ninka wuxuu guursaday islaan hadda ka hor islaantaas gabar bay wadatay ilmayaal badan bay u soo dhashay gabadhii inan bay noqotay way kordhay way hana qaaday markaasuu naagtii iyo inantii isku darsaday hadda waxaa la keenay maxkamadda labadii oo dhalaya si bareer ah xukunkaa uu dhacay markay maxkamaddu eegtay cadaaladda la hor keenay iyo qodobada uu ku helaysan yahay ninkaas warbixin baa ka bixinayaa waxa ka dhacay falka ka dhacay meesha waxa weeye ay eegtay dhinac walba eegtay waxay ka soo saartay xukun adag oo isugu jira ganaax iyo xarig dareenkaa kusaya marka maanta dareenkaygu samaantay si aad iyo aad ugu kacsan yahay anigoo waxyaaba aan adduunka ka dhicin maanta la keenay maxkamadda Garowe waa garan ma garan xukunkaasoo isugu jiray lacag iyo xarig ganaaxa lacag ka kooban ilaa 30,000 $. iyo xarig 7 sano maxaa talo u soo jeedinaysaa ummadda islaamka waxaan ugu baaqayaa waxaa iyo wixii la mid ah in laga fogaado haddii la arkona in la hor keeno maxkamadda iyo cadaaladda ka waran xukunkaas uu dhacay xukunkaas wuxuu dhacay si cadaalad ah oo talagalay oo sharci ah ma u qalmi ninkaas inta loo xukumay waa u qalmay fatuud dalaya ininki intaa waxaan kaga gudbaayaa waraysiga waxaan salaamayaa dowladda Puntland waxaan salaamayaa Radio Garowe aad iyo aad shaqaalaheeda iyo Professor Maxamed Xasan Ismaan assalaamu calaykum